سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga qiimaha badan lagu soo dhawaada koorsada HTML oo si taxana uga baahino kanaalkan. Waxaynu qaadan doonaa casharkii 17aad inagoo ku baran doonaa habka ama hanaanka loo soo geliyo page HTML ah video. Fiidiyowyadu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay dadku ugu isticmaalka badan yihiin waqti xaadirkan, waayo dadku dhammaan wax ma wada akhriyaan. qaar baa dhageysiga ka hela, qaar daawashada. Waqtigan aan joognana cidda wax akhrida aad ayay u yartahay, gaar ahaan bulshadeena Soomaaliyeed. Marka website-kaagu mid waxbarasho ama mid warka baahiyaba ha ahaadee, waa qasab in aad video soo gelisaa, iyadoo ay kalifayso sababta aan kor ku soo tilmaanay. Waxba yeynaan sharaxaadda ku sii dheeraan, waynu isla fahmaynaa videogu wuxuu yahay. Waxaynu samayn doonaa casharka laabkiisa inaga oo ku samayn doonaa editorka Notepad++ oo aynu casharaanteennii hore ku soo samayn jirnay inteennii wada socotay. Waynu soo furanay editorkii oo inagan joogna hadda. Waxaynu samaysanaynaa page cusub, Ctrl+N. Page-ka intaynaan codesku ku qorin sidii caadadaynu ahayd baynu soo save garaynaynaa. waxaanaynu ku save garaynaynaa desktop-ka. Waxaynu u bixinaynaa video.html. Okay, save. waan save garaynay. Codeskii ayaan qori doonaa luqadda HTML. halkan ayaan ka soo xiri doonaa. halkana head baynu ka furi doonaa. head halkan baynu ka soo xidhinaa. tag title ayaynu ku dhex qori doonaa labada head dhexdooda. waxaynu ciwaan uga dhigaynaa page-ka how to. Okay, waxaynu soo xidhinaa title. halkan isna waxaynu ka furaynaa tag body. halkan baynu ka soo xidhi doonaa. waynu dhamaystirnay codeskii. page-ka ayaynu samayn doonaa color style equal double quotation background minus color laba dhibcood bal midabkaas aynu ka dhigi doonaa. calaamadoodna ku saxirnaa Ctrl+S. aynu page-ka soo kicinayno shaqeynayo iska tijaabino. page-kii wuu inoo soo kacay. background-kii aynu siinayna colorkiisa waa ka qaatay. sidoo kale ciwaankii aynu ku qornayna waa ka xagga sare ka soo baxay. hadda waxaynu bilaabi doonaa codeskii aan ku soo gelinaynay video-ga. laba hab ayaa loo soo geliyaa. habkan u horeeya ayaynu eegi doonaa. halkan baynu furaynaa taggan. waxaan leenahay embed crc equal double quotation. waxaynu gelinaynaa video-ga magaciisa iyo formatkiisa. page-keenan wuxuu yaalaa desktop-ka. marka video ay isku location yaalaan ayaynu halka soo gelin doonaa. desktop-ka aynu video-ga ka eegno. icon waa video, calculator waa video, isagaynu soo gelin doonaa. calculator sax .mp4 Ctrl+S. aynu soo kicino. video-gii waa kan uu inoo soo galay. waxa uu shaqeynayaa. dib baynu ku laabanaynaa note-kii. intan haddii aynu u baahannahay widthkiisa iyo height-kiisa waynu xadidi karnaa oo waynu kasii weyneyn karnaa. waxaan leenahay height ha noqdo equal double quotation. waxaynu ka dhigaynaa 400 oo pixel. ka yara baxaynaa. waxaan leenahay width
equal double quotation 800 pixel. Control S, page aynu ku laabano, refresh. waxaynu jeednaa inuu hadda fiidiyowga intii hore ka weynaaday, markaynu daarnana si fiican u shaqeynayo oo baxayo. habka kale ee loo soo geliyayna waynu eegi doonaa. waxaynu ku tijaabin doonaa video aan isku location alin page-keena. koodhku sidan ayuu ku bilaabmayaa. hore waxaa la furayaa tagga video controls. ka baxayna video ayaynu halkan ka soo xidhnaa taggiisa video. taggi video aynu soo xidhnay. halkan baynu ka furaynaa tag kale, leenahay source, meesha laga soo qaadayo crc double quotation video ayaynu ka soo qaadan doonaa qaybaha computerka. halkan lessons ayaan sii tegi, photoshop kan videogan ayaan dul tegi, right click baan dhihi si aan locationkiisa u soo qaato. property kan inta weeyaan locationkiisu. control C, waxaynu ku laabanaynaa page-kii. control V, halkaas ayaynu ku paste karaynaa. slash magaciisa ugu dheeraa, magaciisana aynu soo qaadanaysnaa. magaciisuna waa intan. control C, file type-kiisana aynu sii eegno, waa M4V. okay, magaciisii aan soo copy garaysanay ayaan halkan ku paste garayn. control V dot M4V, intaas ayuu ahaa formaatkiisu. control S aynu soo kicino page-ka. waa kan videoga isagoo aad u weyn buu soo galay. kan andaaro, kan page-kii gebi ahaanba uu qabsadayba. waxaynu samayn karnaa inaynu height-kiisa iyo width-kiisa yarayno. habka loo yaraynayo xanaankana aynu isla eegno. halkan controls ayaad yara baxaysaa space, waxaad leedahay width-ku ha la mid noqdo equal double quotation 600 baynu ka dhignaa pixel. ka baxaynaa height-kana waynu xadidaynaa isna equal double quotation. halkan waxaynu ka dhignaa 300 oo pixel. control S, page-kii aynu dib u soo kicino. waxaynu u jeednaa inuu videogu yaraaday. markii hore page-ka wada haystay inuu halkan ku ururay. waanu daarmaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaah. marka uu daarmayaa uu shaqeynayaa. kan hore isna sidoo kale uu shaqeynayaa. labadaba haddaan isla daarno way shaqeynayaan labaduba. videogana wuxuu ahaa video hadda kanaalka ku jira oo ah habka background-ka looga saaro sawir. haddii aad u baahantiin isagana waad ka heli kartaan. videogan formaatkiisu waa M4V. sidoo kale videoga hore formaatkiisuna waa MP4. waxaa laga yaabaa inay videoyadu kala duwan yihiin, qaar MKV aad arki doonto. marka badanaa browserkan Chrome-ku waxa uu taageeraa videoyada M4V iyo MP4 iyo waliba videoyo kaleba uu taageeraa. waana Chrome-ka inta badan la isticmaalo. laga yaabaa browser kale haddii aad adeegsanayso inuu soo saari waayo videogan tape-kiisa. waxaad isticmaali kartaa file tape kale oo ah OGG la yiraahdo. marka OGG-gaas wuxuu kuu suurta gelinayaa haddii Chrome-kaasi kugu shaqeyn waayo MP4 oo kale inuu kugu shaqeeyo. marka taasna waad adeegsan kartaan. casharkeennii ahaa habka loo soo geliyo video intaas ayuu nagaga egyahay. waxaan rajeynayaa inuu idin fududaado laabkiisu. tan iyo videoga xigeenteenu ku kulmayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.